أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan kusoo dhawaada Obrad Healthy Cooking oo maanta inoo wada waxyaalo maanta la isku caateynayo ama caafimaadka u fiican walaalayaal maanta waxaa inoo wadaa quraac wax quraacda ugu filan qofka oo quraac ahaan uu ku joogi karo iyo wax la isku caateyn karo halkan waxa inoo yaala maanta malab way halkan waxa inoo yaala halka kanna waa khal af Soomaali waa khal Carabina waa khal كل إنجليش كانوا كاسا أبل سيده ويه في نيتشا مركا هالكان هو بيو هالكا كان ماشان واتشي سيد في سومالي دي سماء قان لكن شي سيد لو ميري يرير وكسي يرير إن كوا إن وحكي يريرهن إن كوسي سنتي كسي يريرهن أدو يريرهن مراهكن مركا واتشي سيد بردها هالكا كان بورش بإنه ياله بورش عن عنقل كسودري بإنه ياله marka bal aan fiirino waxa sameeynayno halkan walaal biyaha noo yaala chia seed baan ku daraynaa intaana chia seed ku darin baan khalkan ku daraynaa waa hadii qofku uu rabo in uu iscaateeyo maanta iscaateynta bay ka shidan tahay miyaan dhihi jiray maanta waa iscaateynta biyaha marka halkaas labada qaadaad ku darsanaysaa oo khalka ah waad ku daraysaa markaad ku dartid booskas waxaa kaloo gashan kartaa liinna waa gashan kartaa laakiin khalka maadaama tarkiis uu ka caafimaad badan yahay wax kasta isagaan booska liinta gashan hadaa liin haystidna waa gashan kartaa kana waa chia seed way midka kana marka isagana waxaan isticmaalaynaa labada qaadan isticmaalaynaa baalkan miraha kan waa miro ilaahay sameeyay dhulkeena ka baxaan ma aqaan dhulkeena inay ka baxaan in kala ma aqaan laakiin waa ilaahay uu caafimaad ka dhigay marka rabtid inaad aad rabtid in aad cabtid sidaan baa suubinaysaa sidaan markaa suubisid waa walaaqaysaa haddaadan hore ka walaaqin wuu isku dhegdhegayaa waa wax isku dhegdhega oo xanjo sidoo kale isku noqonaya marka ka gaar intuusan isku dhegdhegin ka gaar sidaas u walaaq sidaa marka u walaaqdidna iska dhig meel xoogaa adiga intuu dhareer isaga dhan wada dhareer buu noqonayaa ilaa welina booskaas liin khalka waxaa gashan kartaan liin laakiin khalkuna aad buu caafimaad badan yahay keligiisa waxyaalo fara badan tara haddii hadda la dhaho hala baaro isaga caafimaadkiisa ama laga sheekeeyo buug dhan buu noqon karaa marka maadaama khalka laftarkiisaba la isku caateeyo oo gaaska la isaga bi'iyo isagaan ku darsamay كل أنا كان أقدر صدام أقدر سنة سيدان بالصمين إن مركة وحن كله أقدر إن هذا هذا شيء يصير كأنه حكوت ترويه هالكاس قاعدة أو وحن أقدر سنة إن ملبكة هالكاس قاعدة ملبكة ما سكن أقدر سنة إن شاء الله قاعدة ملبكة ما أقدر سنة chia seedka yuusan idin dhuman waxyaab la weeye oo aad iyo aad maartay mucjiso u ah caafimaadkiisa goormaa la cabaya marka subax aroortii markaa soo toostid qofka waxa fiican inuu biyo cabo waa qofka caafimaadkiisa u fiican hadaa biyo qabo cabi kartid iyo hadaa biyo qandac cabi kartid biyaha qandaca sida caadiga waxa fiican qofka inuu la 4 galaas cabo hadduu qofka cabi karin hadduu rabo intuu ka cabi karo ha ka cabo subaxii waxa fiican caloosha biyo lagu hormariyaa fiican iska jira waxyaalaha sokorta leh sida macmacaanka leh waxyaalaha macmacaanka oo lagu gado meelaha sida buskudiyada keegaga waxyaalaha saliidda leh qaxwada kafeega waxaas oo dhan normal ma ahan qofku inuu ku kalaho waxay bedelayaan qofku wuxuu ka bedelmaya hormonisku ma ahan kuwa ilmaha oo kaliya laakiin jirkeena oo dhan waxa ku jira qanjiro ilaahay noogu talagalay qanjiradaas qanjir walba meelba mas'uul ka yahay qanjirku meesha mas'uulka ka yahay oo dhacaanka uu siiyo baa khaldamaysa marka caloosha insaymiya ku soo daaya dhacaan qanjirada dhunteena waxa ka soo daaya dhacaan meel walba oo maxaan ku raad jirkeena qanjir baa ka soo baxay qanjirkaasna waxba mas'uul ka yahay qanjiradaas way khaldamayaan qaabka u shaqeyn lahayd dhan baa khaldamaya calooshiina ha ku hormareen kafee shaah qaxwe waxyaalaha sokorta leh beverageska waxa la yiraahdo oo supermarketada lagu gado way macmacaanka ah iska ilaaliya qofkii xataa jecel dib ha ka cab haduu rabo
marka biyaha cabtid subaxii caadiga ah ama 2 galaas qofka intuu cabi karo oo xoogaa aad joogto nus saaca waxay cabisaa galaaska kan baad cabisaa chia seedka ah intaasaad cabisaa markaad cabtid after half an hour haduu 40 daqiiqo meelahaas ama nus saac quraacdaada caadiga waad cuni kartaa hadda quraacda caadiga ah maxay noqon kartaa marka waa inaad quraac healthy ah samaysatid inta marka cabtid ma la taabanayo waxaan sugaynaa 5 minutes waatana marka quraacda caadiga ah dadka laftirkooda kan waa boorashka in badan baan kasoo sheekeeyey intaas aan kasoo sheekeeyey oo badan meeshaad ka fiirsan kartaan laakiin haddana waxaan sameynaynaa bal sidii quraac healthy aan u samaysanayn halka maanta boorash baan kusoo diyaariyay caanana waan kusoo daray waxaa rabtid waa ku darsan kartaa oo qudaar ah hadda moos baan ku daray laakiin waxaad ku darsan kartaa wax yaro babaay ah maxaan ku raadaayay wax yaro maxaan ku raadaayay nooc walba oo markaas aad haysatid baad ku darsan kartaa oo qudaar ah waad ku darsan kartaa ugu jeedid marka quraacdaadii waatana marka iyadana ama casho ama quraac waad ka dhigan kartaa wax sokor kuma darin oo kale xabad kale oo sokor kuma darin intaas waxay ku noqon kartaa quraac inaf ah bay ku noqon kartaa malabkana qofku intuu rabo ku darsado hal qaada kugu filan ama qaada hafkeed baa kugu filan marka waa taas quraacdeena iyadoo nadiif ah waa taas maxaa marka chia seedka miraha kan hadda la ogaaday fitamiinadooda iyo waxa ay leeyihiin iyo waxa laga helo benefitka laga helo waa wax aan la soo koobi karin lama soo koobi karo waxyaalaha laga helo horta dadka wadnaha xanuunka qaba dhan waa u fiican tahay maadaama uu cholesterolka la diriirayo miisaanka dhan buu la diriiraa wax allaale iyo wixii miisaan waa la diriiraysaa wax allaale iyo wixii miisaana wuu la diriiraa baalka kan miisaanka dhan qofka buruudis dhan hoos buu dhigayaa sidaas wadnaha ugu fiican yahay wadnaha kuma dhaco cudurro kuma dhacaan waxaa ka mid ah lafaha borotiin waxaa ku jira ilaahay qadartiisa ilaahay ugu talagalay oo ilmaha yarka hadda haddii la siiyo ilmo buura hadduu kuu joogo waa siin kartaa aniga hor baan siistaa hadda bahalkan aad buu u fiican yahay haddana borotiinkaas muxuu yahay waa borotiin oo natural weeye ilaahay ugu talagalay lafaha wuu adkeeyaa iyo meelaha maxaan ku radaa iska galaan ilmuhu markuu korayo kale la siiyaa fiicanba oo haddana uu booran yahay ilmo yaro caata ah hasiin haddaa rabtid waxaa ku jirta calcium natural baa ku jirta phosphor baa ku jirta borotiinka idin sheegay baa ku jirta iyo magnesium oo lafaha aad ugu fiican baa ku jira waa cunno dhammayst ilaahay sameeyey dadka sokorta qaba waa kula talinna baalka inay cunaan chia seedka dadka sokorta waxaa cunaan weliba type 2ga dadka sokorta qaba aad buu ula diriiraa oo dhulku dhiga waxaa ku jira normal insulin ah dadka hadda insulinta qaata ama irbadda qaata waxaa ka fiican inay kan cabaan baa fiican chia seedkan inay cabaan baa fiican oo ay si normal u cabaan waxaa la yidhi qofka sokorta qaba haddii uu 37 garaam qiyaastii ma aqaan anu inta tahay hadda laakiin qofka sokorta qaba hadduu 37 garaam oo bahalkaana oo chia seedkaana uu laasinto oo normal ka dhigto sokortiisa normal bay kusoo noqonaysaa iyaduna maxaa ka mid ah waxa la yiraahdaa inflammation waa xanuunada iyo caabuqyada iyo waxyaalaha jirka ku dhaco dhan buu ka hortagayo ama hadduu jirka ku jirana wuu ka saarayaa waxaa ka mid ah haddii virus uu jirka ku jiro virus waa waxa la wixii aan daawo lahayn baa virus la dhahaa waxa la waxaan daawo lahayn baa virus sida hargabka sida HIV-ga waxyaalaha aan la garanayn markaas baa la dhahaa bacteria waa virus markuu isu bedelo bacteria waa la daweyn karaa sida markii hargabka kale uu malax noqdo iyo meelaha malaxda jirka ku jirta iyo oo sun jirkaaga uu ka saaraya waxyaalaha sepsiska ama sumowga uu ka saaraya jirka viruskana waa sheegnay sepsiska uu ka saaraya bacteriyada waxyaalaha dhan jirkaaga uu ka saaraya haddii biro leedahay bahalkan caadi isaga cun aad buu fiican yahay birada uu kaa dejinayaa gaas haddii qabto gaaska uu kaa dejinayaa waxaa ka mid ah dadka dhiigkarka qaba aad buu fiican yahay sababtoo ah cholesterolka maadaama uu hoos u dhigayo dadka dhiigkarka qaba xididadooda waxaa khatara inay fat ama dufan ama heart attack ama maxaa la yiraahdaa faalidka marka qofku kusoo boodo aad buu uga hortagayaa bahalkan aad buu fiican yahay miraha kan waxaa ka mid ah
waxaa ku jirta wax natural ilaahay ugu talagalo la yirahdo omega 3 omega 3 waxaa laga helaa saliidda fiishka iyo kalluunka waa laga helaa mid ka tiro badan buu leeyahay ilaa qadartiis waliba kalluunka la yirahdo salmonka la dhaho wuu kasii tiro badan yahay midka halkan ku jira waa kasii tiro badan caloosha wuu jiraa dadka caloosha ballaaran ama calooshoodu ay xeerta badan saaran tahay ha cunaan joogtaha u cunaan si joogtaha isaga cunaanba waxaa kale oo ka mid ah inuu qofka uu ka dhigo qof dhergsan cuno badan qofku cunamay sidaas qofku catoobaya qofku iska noqonaya fuul ah oo dhergsan oo maalintii oo dhan iska buuxu noqonaya see loo cunaya marka wataan idiin sheegay sidaan qaabkaana loo cunayaa laba qaandad bakeerigaas ama galaaskaas kale ku darsanaysaa waxaan sugaynaa intuu dhareer ka noqdo wakaasa isaga dhan wuxuu noqdo dhareer buu noqday welina waa sugaynaa sidaasaad ku cabisaa saasaa ku joogaysaa haddii aad rabtid inaad ka dhigatid quraacna oo quraac ahaan ku joogtidna boorash baad soo karsanaysaa mooskaagaad ku jarjaranaysaa wixii kale qudaar ay haysatid sidaasaad korka uga darsanaysaa adigu in qiyaasta hadda waxaan ku shubay qaadadaas la-eg waan ku shubay haddii aad si kasta aad subax kasta xataa sidaan u isticmaashid oo quraac ahaan aad u isticmaashid sidaan xataa waa si iyaduna aada u fiican sidaana quraac ahaan uga dhiganaysaa waxaa lagu darsadaa qadaa haddaa cunaysa markaas waxaa lagu darsadaa wax allaali iyo wixii aad cunaysid biyaha lagu darsadaa qadaasaan lagu darsadaa shaahiyada lagu darsadaa suugooyinka lagu darsadaa burkaa lagu xashtaa cuno walba markaas aad cunaysid ma diidayo saana dusha looga darsadaa haddaad dibiro dareentid afka ku shubo haddii maxaan ku rahdaa aad is leedahay gaasha ku haysa afka ku shubo adiga dhan waa dhargaysaa calooshaadu maarata ugu barbaraya waana waxaas ilaahay hagaajiyay dhirtiisaas ummadiisa ilaahay u diyaariyo weeye isaga dhan hadda dherer buu noqday soo ma aragtaan markaasa dhareer buu noqday isaga dhan xabad kasta waa buuranaysaa waa weynaanaysaa marka maanta waa healthy weeye healthy bay ka shidan tahay iyo iscaateyn sidaana waa u cuni karta oo joogto ah marka kan cabti kabacdi oo aad joogto 40 daqiiqo kabacdi ama 30 daqiiqo baa quraacda taan ka dhigan karta intaasaad ku joogi kartaa gaas oo qadadaad ku sugaysaa maanta quraacdaadii waa taas quraac heerta iyadoo ah wal cuntay intaas waxay ku noqonaysaa quraac waana wax wada kan waa boorashka aan ka soo sheekeeyay in badan wuxuu ku jiraa channelka Ugbaad Healthy oo ku jira oo waxyaalo far badan oo caafimaad ay ku jiraan halkaas aad ka soo fiirsan kartaa wuxuu ku jiraa Ugbaad Healthy Ugbaad Healthy waxay idin soo wadaa wax kasta oo caafimaad ah oo caafimaad ku saabsan healthy ah subscribe iyo like iyo share haddii ha nagala bakaylanina